waxaan maqli jiray waagii hore sagaal abgaal waa geed sal weyn oo sakiin maba goysaba maanta cirbadaa ka dhex baxda dhinaca kale u jirtay meeqa nin oo taajiriina ay abgaal qabaan ma la xisaabi karo macquul maaha maba la xisaabi karaba أنا أقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا مركلا إيه مقال عصب مقعي هو عبد الساق حاشي حلقة نقل سعطانا ودق دق channel أنا بس كدق دقي إنت كستو دق دقا وحوني هاي ما أنت وحا آن وذو دي رجلين عاي ماهن أبقى إني بقيليه ماهن أبقى إني حولانيه ماهن لكن أبقى هالدور كودي وإسكن ترين ها waxay iska indha tireen wiilkoodii qaaliga ahay ee walaalkeen Bilaal Bulshaawi oo dhaawac uu soo gaaray una baahan kaalmo caafimaad una baahan wax qabad qoorta xabad loogu dhuftay halka dhinaca kale ay ka baxday sida arka doontaan sawirka aan meeshan soo saarayo inuu maanta social media oo ka ilmeeyo waxa keenay agoonnimo hadduu maanta aabish u noolaalahay allah u naxariistee maanta abgaal in badan oo ka mid ah way garab istaagi lahaayeen ayagoo mataqaanaa ninka odaga ah iska gadaaya hota hor aan wada dhegeysana Bilaal Bulshaawi maanta wuxuu looyay wax yar maahan xanuun haya waay iyo garab la'aan hayda waay iyo tolnimo la'aan hayda waay maanta uma baahdeen ayadoo abgaal ay qabaan boqolaal nin oo taajiriina oo bahasha meelay kala geeyay waaye kala raseeyay waaye oo ognahay magacyadooda halkaana ka sheega ma rabo waa aqaana waa tirsan yihiin magacyadooda ina inta ka sheega ma rabo laakiin waxa la waayay hal nin oo 50,000 ama 20,000 ama 30,000 oo dollar oo ninka caafimaadkiisa ku baxaya bixiya laba weynin marwada madaxweynaha kaliya ku filan laga gaarsiiyay labada marwo madaxweynaha laga gaarsiiyay arintan muuqaalka loo sheegayo labada marwo oo madaxweynaha laga gaarsiiyo iyo xaaska Sheekh Shariif laga gaarsiiyo marwooyinka Shariif laga gaarsiiyo hadii nimankooda baqiila noqdeen ayaka gabadha baay waligoodba gabdhaha dadka ka jiray gabdhaha la gaarsiiyo nimanka guryaha waa loogu taliyaa soo madaxweynaha haduu dalka u taliyo marwadana waxay ka talidaa madaxtooyada dhexdeeda waa ognaa Soomaataas ha loo sheegayo codkaygan hala gaarsiiyo muuqaalkayga hala gaarsiiyo markaan taas ka soo tago aan Bilaal soo laabto Bilaalow walaalkeeyo Bilaal Bulshaawiyo qoto waxa tahay nin wanaag jecel nin wanaag badan aan ka xumahay Bilaal Bulshaawiyo waan ka xumahay ina maanta ooydo waan ka xumahay bal daawo muuqaalkan Bilaal marka hore anigu xabadda bartaasay iga soo gashay bartaasay xabaddu iga soo gashay hadaad arkaysaan bartaasayna ka baxday xabaddu halkaasay iga soo gashay Bilaalow waxaa tahay muwaadin Soomaaliyeed waxaa tahay wiil dhalinyaro ah oo ay bulshada dhan jeceshahay waxaa tahay nin ummadda oo dhan taageersatay una duceeday waxaan ogahay habeenkii lagu dhaawacay in ummadii oo dhan isku soo wada kaceen si lagu duceynayay ilaahayo badbaadi ilaahayo miskiinka yarka ah ilaahayo ku dhibaato u geystay cinqaab kuwaas cinqaab iyo habaar waxa ugu filan ba inta muslimka habaareen waxa ognahay ina hooyooyin badan iyo aabayaal badan carruur badan oo Soomaaliyeed aad habeen iyo maalin aad cuno u qaadayay adoo garabka ugu xamaalaya aan daawanaynin anagoo guriyana fadhina shalay marka nin ka xumay gargaarka umada gargaaraydo maanta inaad mataqaana la hadasho u jawaabto xaq uma lihidba kaasa u jawaabin waa wax liita ninkii shalay adigoo garbahaaray dad ku baaba'ayo cuno u geynaya ka calo xumaanayo dhahay ninkan soo u geey karaa yacni soo u qaban karaa ka calo xumaanay ina maanta la hadasho waqti ku dhumido mabalid adiga xanuunsan adiga dhaawac ah adiga daawo u baahan adiga kab u baahan walaalkayga iska dhaaf leefkan iyo hadalkan dhuunta hadii ku qaracdo adiga dhibaato ku tahay iska jooji
asxaabtaadii wax la samey jirta rag kamid a kula jooga wax la samayso sheekadaada filimaha iska soo gash tiktokaaga inta ilaahay caafimaad kaa siinayo ku samir ninkan waa kana caddayntii asagoo hooyadiis ay sheegaydo inuusan la soo hadlin bal dhegeysta أنا ما صوّن ما تجي والله إنه هلا يصور مقع إلهي مقع سوق markuu baxayna kuma sheegin ما يوم مقع إلهي مقع سوق وأبو وعي صبحي ما بالك ودا عايين مرضور كان دنا وعضقنا هذا اسمه ما فعلين بقى أيقا قبل جديد أصلا hooyo hal mid ay jirto mawliid horta markuu baxay cid qasbaysa ma laha ما يوم joogistiisana cid ku qasbaysa ma laha ما سحر waa yaab ninkii hooyadiis dhashaba asagoo la hadlinba magaalada muqdisho ka soo dhoofay aniga inuu shirqoolka wax ku ogaaya xabadaha u gudbiyana u malaynaaba oo shaydaan markii horeba adiga kula socdo uu ahayba aad ogeyn adiga waxaan aan kala dhageysanaya adigoo dhahaya life-ku ku jiraa ninkii shirqoolay bal muxuu ka faa'iidayaa bal dhegeysta ilaahi tallaahi saddex magacoo ilaahaan ku dhaartee ninkii ka dambeeyey in lay dhaawaco lifekuu nagula jiraa ilaahaa ku dhaartay saddex magacoo ilaahaan ku dhaartay waa ku jiryaa lifeka saddex magacoo ilaahaan ku dhaartay kii ka dambeeyey in la idilo wallaahi lifekuu ku jiraa commentiu soo qoraya ilaaha ila og ilaahay iyo rasuulkiisa ila og wallaahi billaahi tallaahi allah waxaan rajeynayaa bilaal inuu helo caafimaad tamaam ah insha allah u duceeya adinkana u duceeya oo walaalkiina u duceeya qofkii wax u awooda ha u diro ha la xiriiro qofkii wax u awoodaya ha la xiriiro bilaal muuqaalkaygana hala gaarsiiyo waagii hore waxaa maqli jiray sagaal abgaal waa geed salweyn sakiina ma jarto maanta laakiin cirbadaa ka dhex baxday nin doorka ku jira abgaal haddii maanta baraha bulshada lacag loogu aruriyo abgaalo waa inii sumcad xumo waa inii sharaf xumo waa inii ikraamo daro adinkoo leh 19 nin ka badan oo taajiriina xaytaa 20 kor dhaafaysi waa ognahay kuwa caanka ah inta caanka heena ka badan oo xoolaha haysata marka calaanin haddii xataa $5,000 uu bixiyo ninka caafimaadkiisa ku filan tahay calaanin hadduu 5,000 bixiyo waa ka badan tahay labada marwooyinka madaxweynihii hore iyo madaxweynaha haddana waxaa leeyahay muuqaalkayga hala gaarsiiyo adinkaa nimanka guryaha uga adagay adinka haddii annaka noo talayaan ay madaxweyneyaal noo yihiine adinka u madaxweynaha nimanka meel laga soo saara gabdhow nimanka meel laga saaro hooyooyinow bilaal ha fiirsanina bilaal wuxuu ka mid yahay kuwa aad dhasheen oo aad soo koriyeen oo naas kusoo nujiseen ها وحاسسكي شيخ شريف ها وحاسسكي حسن الشيخ محمود muuqaalkayga ha loo sheergareeyo hala gaarsiiyo hooyooyinkeena hala gaarsiiyo waxaan leeyahay xasan sheekh hadduu madaxweynaha dalka yahay markuu sariirta yimaado adinka ka madaxweynaha markuu qolka soo galo adinka ka saraysiin adinka waa ogtihiin markaas jeega ha laga saxiixo odayga markaas hala galo wiilaalna hala caawiyo hadduu maanta wiilkaaga dhaawacmo oo maanta gara u bahalahay lagaama seexdeen adina maanta bilaal ka seexanina xaasaska sheekh shariif waxaan leeyahay adinkaa maanta shiiqa adinkaa maanta ka adag war muuqaalkayga hala shargareeyo hala gaarsiiyo marwooyinka madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda jooga hala gaarsiiyo waxaan leeyahay inta kale oo hawiye ah oo lacagta haysata oo bilaal bulshaawi ka qayb qaadan karta caafimaadkiisana ha u istaagaano muuqaalkayga hala sheergareeyo please meel dheer hala gaarsiiyo maanta waa codsi bilaal dartiisa ha loo sheergareeyo tolkan hala gaarsiiyo beesha hawiyin waxaa leeyahay ragga taajiriinta ahow sheekh axmed nuurow ninka hormuud fadhiyo malaayiin dollar haystaa bilaal bulshaawi waa wiil agoona wuxuuna u baahan yahay garab wuxuu u baahan yahay garab wuxuu u baahan yahay adeernimo wuxuu u baahan yahay walaalnimo sheekheeniyow ilaahay ha ku barakeeye waxaa ogahay aabbahaaga allah jannada geeye inaa masaajid ugu dhistay 12 milyan oo dollar maanta wiilkaas waxaa ku filan 20,000 ama 15,000 30,000 wixii caafimaadkiisa ku kacaya
ayadana u niyeysa aabbahaaga ayay laftirkeeda u niyeysa aabbahaagee adeerow gacaliye maanta ninkaas baraha bulshada ka oynaye waa wiil dhallinyaraa waa wiilkaagoo kalaa hala gaarsiiyo madaxdeena hala gaarsiiyo muuqaalkan ha loo gudbiyo sheekh axmed nuur waa ogahay inuusan waxaan fiirsanin waa ogahay inuusan tiktok soo gelin waa ogahay inuusan youtube daawanin laakiin ehelo badan oo la xiriiri kartaa jirta oo daawata waa nin sadaqada jecel hala gaarsiiyo muuqaalkaas axmed nuur sheekh axmed nuur hala gaarsiiyo wiilkaas uu caawiyo aabiistuu ula baxo hadduu hooyiis ula baxo hadduu maanta walaalihiis dhinto ula baxo hadduu asla naftiisa ula baxo wuu heli karaa 100,000 inuu siiyo xataa $. hala gaarsiiyo muuqaalkan sii sheergareeyo hala gaarsiiyo waxaa lii hadal badan haan buuxshee assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuqaalka waa soo gabagabeeyey waxaan leeyahay hala gaarsiiyo madaxda hawiye muuqaalka like saar share day comedy ka bixi uguna soo duceey walaalkaaga inuu ilaahay caafimaad siiyo bilaa bulshaaweyn waxaan rajeynaynaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo